السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانت صاحبي سو دوادا كسو دوادا channel كنا فرحان academy ما تحان قاندونا 10 phrasal verbs. marka phrasal verbs ku waxay kamid yihiin verbs ka ama ficilada waxaan oran karaa waa verbs ka labaad ee lagu isticmaalka badan yahay luqadda Ingiriiska. Haddaba saaxiibayaal verbs waxay ka saabeysan yihiin marka ugu horeysa verb plus preposition oo marka verb loo geeyay preposition. haddaba saaxiibayaal erayga ugu horeeya ama phrasal verb ugu horeeya qaadana waxa weeyaan take off. waxa weeyaan waxa loo isticmaalaa when plane leaves marka ay diyaaraddu kacayso. when plane leaves marka diyaaraddu kacayso. take over to become control inaad controlshid. I'm take over of the car waxaan controlaya gaariga. take after waxa weeyaan u eeg look like u eeg sida inaad tirahdid you are take after your brother waxaad u eeg tahay walaalka. number 4 take out waxa micnaheedu yahay to remove something inaad meesha wax ka saarto. to remove something. number 5 take up معناه waxa weeyaan start new hobby inaad hiwaayad cusub ama riyo cusub dhistid sida I take up to be a teacher in the future. number 6 get up معناه waa wake up ama to sit. wake up ama stand up kac sida wake up to the sleep ka kac hurdada. number 7 get over waa start to feel happy inaad bilowdid inaad dareentid farxad. I am get over today because I am holiday tomorrow. get in waxa loo isticmaalaa enter a car inaad gaariga gashid. enter a car inaad gaariga gashid. number 9 get on waxaa loo isticmaalaa enter a bus plane or train inaad baska gashid ama diyaaradda ama tareenka. number 10 get to arrived at work inaad tagtid shaqada. arrived at work ayaa loo isticmaalaa inaad shaqada tagtid sida inaad tirahdid I got to the work today.